macluumaad yar oo ku saabsan ninka muranka badan dhaliyay ee doorashada madaxtinimada Mareykanka u taagan Donald John Trump. Good evening. Thank you very much. I speak to you today. Donald John Trump 14 June ayuu ku dhashay New York. waa milyardeer iyo murashax u taagan madaxtinimada Mareykanka. waxa aad loogu xasuustaa intuuna siyaasad ahaan soo caan bixin barnaamijyada talk show-ga oo muddo dheer ku soo jiray. waana qoraa wuxuu leeyahay shirkado fara badan oo dhinaca dhismaha, hoteelada, garoomada golfka lagu ciyaaro qaabilsan. sidoo kale wuxuu xarumo ku leeyahay daafaha dunida. shirkadda Trump aabihiis ayuu ka dhaxlay Fred Trump. Trump hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa $4.5 bilyan oo dollar. waana madaxa guud ee shirkadda reer Trump. Trump waa masiixi xag jira. wuxuu mar walba ku faanaa inuu yahay masiixi kuna adag yahay mabaadi'da masiixiyadda. waxyaabaha uu aaminsan yahay waxaa ka mid ah in uu ka soo horjeedo in dumarka ilmaha iska soo ridaan, taasoo ku badan waddanka Mareykanka. wuxuu kaloo diidan yahay waxa loogu yeero guurka dadka isku jinka ah ama in nin guursado, taasoo Mareykanka mar aan fogeyn qaanuuniyan laga dhigay ama laga ogolaaday. wuxuu aad uga soo horjeedaa barnaamijka Obama Care oo qaabilsan dhinaca caafimaadka. 16 bishii 6 2015 ayuu ku dhawaaqay inuu u taagan yahay doorashada madaxtinimada Mareykanka isagoo matalayo xisbiga Jamhuuriga. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. maalintaas ayuu bilaabay hadalladiisa muranka badan dhaliyay iyo soo muujinta afkaartiisa aadka u liidato iyo cadaawadda uu hayo dadka muslimiinta. wuxuu alifay kitaab lagu magacaabo Ameerikada naafada ah ama Mareykanka naafada. sideen mar labaad ku soo celin karnaa weyninka ama awoodda Mareykan. waxaad arkaysaa in ololihiisa doorashada mar walba uu isticmaalo ereyga Make America Great Again ama Mareykanka ka dhig mid awood badan mar labaad. mowqifyadiisa ama waxyaabaha uu aaminsan yahay waxaa ka mid ah eedii u soo jeediyey muslimiinta Mareykanku dhammaanta dusha u saaray mas'uuliyadda weeraradii 11 Sebtembar. wuxuu soo jeediyey in si adag loo kontaroolo masaajidada kaamirooyinna lagu xiro. wuxuu sheegay inuu si xun oo la dagaalami doono waxa uu ku sheegay argagixisada adeegsan doonana dhammaan hubka uu Mareykanku haysto. sidoo kale mar uu ka hadlayay muhaajiriinta Meksikaanka wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dambiilayaal mujrimiin ah uuna dhisi doono darbi aad u weyn xuduudka labada dal. sidoo kale wuxuu ku tala jiraa in uu tarxiilo 11 milyan dad sharci la'aan ah oo ku sugan gudaha Mareykanka. We have countries that are pretty close to us. dhanka xiriirka Ruushka wuxuu sheegay inuu xiriir aad u wanaagsan la samayn doono dawladda Ruushka. dhanka mowqifkiisa qaxootiga Suuriyiinta wuxuu sheegay in uu dib u celin doono dhammaantood haddii la doorto. taageerada uu hayo Yuhuudda ama Israa'iil mar uu ka hadlayay shirweynaha AIPAC ee looga hadla mar walba taageerada iyo arrimaha Israa'iil iyo Mareykanka ayuu yiri hadalladan soo socdo. In spring of 2004, at the height of the violence in the Gaza Strip, I was the Grand Marshal. 2004 waxaan abaabulay mudaharaad lagu taageerayo Israa'iil. ma jiro qof jecel si la mid ah sida aan u jeclahay Israa'iil. Israa'iil waa dawlad Yuhuud oo gaara wayna ahaan doontaa sidaas. anigu Trump ahaan aad ayaan u jeclahay Israa'iil iyo dadkeeda. weligay ayaan jeclaa waanan jeclaan doonaa inta aan ka dhimanayo. gabadhayda aniga aan dhalay waxaa qaba nin Yuhuudi ah. mar aan fogeynin waxay dhali doontaa cunug Yuhuudi ah.
sidaasna taasina cafwan waa farxad aad u weyn. sideed u aragtaa haddaba hadallada iyo mawaaqifta uu aaminsan yahay ninkaas lagu magacaabo Donald Trump? mase kula tahay inuu ku guuleysan doono madaxtinimada Mareykanka? comment ka bixi, like saar, siina share gare videoga hadduu ku cajab geliyey.